Mid ka mid ah geemanka ugu caansan caalamka. Geemkan waxaa la soo saaray sanadii 2017 July 22. Geemkan waxa uu helay shacbiyad aad u ballaaran, hase ahaatee waxaa la isdhex waday sawir maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada. Geemkan oo ah in aad ka gudubtid si aad uga sii gudubtid aad u dudumisid kacbada si ay sheegeen, balse ahaatee geemkani maxa uu yahay iyo maxay ahayd falcelinta laga bixiyey iyo waxa uu ku saabsan yahay. Halkan ayaan kaga hadli doonaa daawade nala socod wanaagsan. Haddii aan ka taabano qaabka loo ciyaarayo geemkan waxaa lagu ciyaarayaa caalam khayaali ah uusan jirin oo la sameeyey, hase ahaatee waxaa loo ciyaari karaa hal qof ayaa ciyaari kara. Midda kale waxaa loo ciyaari karaa geemkani 4 ilaa 3 gurube. Inta kale waa ay is-ilaalinayaan, midna waa uu dagaaltamayaa, mise qaarna way dagaaltamayaan, qaarna way iska soo horjeedsanayaan. Hase ahaatee geemkani waa mid khayaali ah uusan jirin wax caadi ah. Hase ahaatee waxaasi oo dhani waxa ay u sameynayaan waxa aan jirin. Guruubi korka ayay iska daawanayaan oo waa ay isdifaacayaan sida dagaalka caadiga ah. Waxa ay gelayaan halgan aad u adag oo ay midnaba aan aad u yarayn. Hase ahaatee geemkani waa mid aad u fudud sida ciyaartiisa, laakiinse su-aasheenii ayaan u soo laabanaynaa oo ahayd maxay ahayd sawirka lagu sii daadiyey baraha bulshada. Fiidiyowgani halkeeba uu ka yimid? Fiidiyowgan cidda soo gelisay mise kacbadu doonaysa inay burburiso? Hase ahaatee fiidiyowgaasi waa been. Waxaa la soo geliyey 2019 bishii February 17. Haddaba waxaa laga soo helay barta YouTube-ka. Qof ayaa soo geliyey 2019, hase ahaatee waxay ahayd 2 sano ka hor. waa la soo dhaafay. Hase ahaatee kacbadani waxa uu ahaa fiidiyow qadiimi ah oo markaasi laga duubay, taasoo u saamaxaysa qofka inuu design garaysto, uu hagaajisto, uu habka uu doono geemka isagoo ciyaarayo inuu samaysto. Sida ay sheegeen waxa uu yiri geemka ciyaarta ma jirto. Ahaatee geemkani waxaa ka falceliyey dad tiro badan uusan yarayn. Mid inuu design garaysto isaga qusaysa keliyeeta, mana ku jirto, mayna soo saarin shirkadu, mayna ku soo darsanin shirkadda geemkani samaysay ee Fortnite. Qofka samaystay horta fiidiyowgani waa qadiimi, waxaa la sameeyey 2 sano ka hor. Hase ahaatee fiidiyowgani qolooyinka ciyaara geemkan ayaa yiri isaguna falcan dhankiisa ka bixiyey. Waxa uu yiri geemkani horta waxa uu ku siinayaa xorriyad, taasoo ah inaad nashqadaysato habkaad u ciyaari lahayd geemkani. Hase ahaatee ma jirto buu yiri kacbada barakeysani meel ay kaga jirto oo ay ku nashqadeeyeen. Hase ahaatee nin ciyaari ayaa sidan u nashqadaystay, muuna ahayn, muuna ka wadin kacbada. Markiiska Al-Azhar ayaa ka bixiyey falcelin noocan oo kale ah. Waxa uu yiri fiidiyowyada noocan oo kale ah uma fiicno carruurta. Hase ahaatee waxay xadayaan maskaxda carruurta, taasoo ay ku sababayso in ay noqdaan dad qalbi adag haddana macangaga. Ma fiicno sawirada noocan oo kale in la soo geliyo ama lagu sameeyo fiidiyowyada noocan oo kale, taasoo qofka ka qaadayo dhiig-yacab oo uu ku noqonayo in uu u sababo dhiig-yacab uu noqdo. Hase ahaatee waxa uu ku celiyey mana fiicnayn in la soo geliyo fiidiyo ama sawir geemkani kaasoo u sababaya in uu noqdo kacbadii. Hase ahaatee ma fiicno, mana galaan meelaha lagu cibaadaysto diinta Islaamka jees ama wax ciyaara. Hase ahaatee laakiinse waa in la joojiyo ayuu yiri masjidka Al-Azhar. Nu ka imaanno waxa uu yahay fiidiyowgan halka uu ka yimid iyo asalkiisaba waxa uu yahay. Aynu ka imaanno haddaba aan kuu sheego muqasidaadka Islaamku ma galaan jees ciyaar iyo wax la midaba iyo geem iyo sidoo kale waxyaalaha maalayacniga ma galaan muqasidaadku Islaamku. Haddaba innaga Islaam ahaan maxay nooga wajahan geemamka noocan oo kale ah? Fiidiyo ha ahaado ama sawir ha ahaado, waxa uu dooni ha ahaado, maxay nooga wajahan fiidiyoyadan lagu turayo muqasidaadka Islaamka?
hase ahaatee waxay nooga wajahan islaam ahaan, waxay nooga wajahan in aan uga hortagno meel walba oonaan uga hortagi karno caqabad kaste ha loo maree. Daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Inta aan ka kulmi doona fiidiyooga xigi doona, khayr ayaan ku rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.